Magaca Caaisha. Caaisha waa magaca mid ka mid ah xaasaskii Nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ah Ummuna Caaisha radiyallahu canha, waxaana laga keenay ama lagu fasiraa micnihiisa nolol. Basma waa mid ka mid ah magacyada wanaagsan ee loo bixiyo gabdhaha, micnihiisuna waa farxad ama maqlidda war farxad leh. Xanaan waa mid ka mid ah magacyada wanaagsan ee loo bixiyo gabdhaha, micno ahaanna waxaa lagu fasiraa naxariis iyo reenreen ama midii damqashada lahayd. Faatima ama Faatima waa magaca gabadhii Nabiga sallallahu calayhi wasallam, waana mid ka mid ah magacyada ugu wanaagsan ee loo bixiyo gabdhaha, micnihiisuna waa midii ka fogaanaysay waxyaabaha xaaraanta ah. Faa'iza. Magaca Faa'iza waa mid ka mid ah magacyada wanaagsan ee loo bixiyo gabdhaha, micno ahaanna waxaa lagu fasiraa guul ama qof mar walba guuleysta. Amiira. Magaca Amiira waxaa lagu fasiraa boqoraddii yareed ama gabadha uu dhalay boqorka, waana mid ka mid ah magacyada wanaagsan ee loo bixiyo gabdhaha. Nawaal. Magaca Nawaal waa mid ka mid ah magacyada wanaagsan ee loo bixiyo gabdhaha, micnihiisuna waa gift ama hadiyad. Asma. Magaca Asma waxaa lagu fasiraa sarreyn ama midii ka sarreysay gabdhaha kale, waana mid ka mid ah magacyada wanaagsan ee loo bixiyo gabdhaha.